السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هويدان waa 60 sano jir waxay maanta maxkamadda gobolka Banaadir ay ka sheegtay hal arin oo cajiib ah, laakiin dad badan ayaa laga yaabaa inay yiraahdaan hooyadan waa hooyo da' ah, maxay wadanka ugu tagaysaa, maxay xilliga nafsadeeda khatar u gelinaysaa, maxay wadanka ugu tahriibaysaa. Ha yeeshee warkeeda waxaa ku jira hadallo nuxur ah oo ay ahayd in gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir uu fahmo, mas'uuliyiinta ugu sareysa dowladana ay fahmaan. Ha yeeshee inta aan guda galin faahfaahinta wax yar ila dhageyso hadalka hooyadan sidoo kalena si gudbay. markaan taga kadib geewsad meeshii ilaahay igay Faransaan gali lahaa meeqa sana jirtaa 60 sano intaymo xaq u dhib maamada waayahay qaarkiin waxaa laga yaabaa inaad durbadiiba tiraahdaan maxay hooyadan xilligii ay ahayd in ay qabsato tusbaxeedii saligeedii fariisato oo aysan wadanka ka tagin maxaa ku kalifaya in ay baxdo oo ay nafsadeeda biimeyso ee lacag intaasi la eg oo 5,000 ah ay dhiibto maxay sidoo kale maalgashi u sameyn weysay oo igu shaqeysan weysay xitaa dad isweydiinayo. hooyadan laba gar ay ku leedahay. midda koowaad wadankeeda kuma aysan helin caafimaad, kuma aysan helin waxbarasho, kuma aysan helin shaqo. waxaa laga yaabaa in caruurteedii ay rabtay inay ku nasato oo ay nolosheeda wax ka bedelaan in shaqo aysan haysan, wax barteen, xafiisyada qaarna culays uu ka haysto haddii xitaa ay wax barteen la gacan bidixeynayo. sidoo kale waxaa laga yaabaa in noloshii magaalada ay ugu darsoontay amni darro iyo khataro maadaama wixii maanta ka dhacay Muqdisho la ogaa oo xitaa garoonkii aadan cadde gaar ahaan diyaaradihii waaweynaa ay halis galeen, gaar ahaan Turkish Airlines iyo kuwa kale, Qatar Airlines ay ku jirto oo madaafiic lagu asqeeyay. labadaas arin oo waaweyn ayaa haysata hooyadan iyo kuwa kale. gar ayayna u leedahay in wadanka ma dheheen anaga wadanka ka tag ma dheheno, laakiin gar ayay u leedahay in ay garnaqsato oo ay gudoomiyaha maxkamadda u sheegto in wadanka ay ugu tagayso nolol ka duwan tii ay ku haysatay gobolka Banaadir. haddaba waxaan rajeynaynaa in culayska iyo dhibaatada hooyadan iyo guud ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed inuu Ilaahay ka saaro, xaalkan sidan uu Ilaahay ka bedelo, madaxda Soomaaliyeedna uu xaqa tuso, cadaaladda tuso, wanaagga tuso, si hooyadan ay ugu qoys qaataan warkeeda oo ay u fiiriyaan hoos una dhahaan waa muhiim in wax laga bedelo xaalka wadanka uu ku jiro, maadaama hooyadan waxa ku kalifi kara ay tahay qodobada amniga, caafimaad la'aanta, waxbarasho la'aanta, wadankii oo xasileen, musuqmaasuqa, wax isdabamarinta, isla markaana rajabeel ay ku jiraan shacabka qaarkood. haddaba tani waa muhiim in madaxda Soomaaliyeed waxay ka bartaan muuqaalka si gudbi.